wabarakatuh saaxiibayaal kusoo dhawaada Sabuni for you muuqaalkeena maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa laba farsamo ama laba xeelad oo aad u adeegsan lahayd markaad isticmaalayso WhatsApp-ka labadaas xeeladood waa inoo muhiim xeelada koowaad waxa weeye markii aad rabto inaad cod dheer aad qof u dirto waxaa laga yaabaa mararka kaas duubaa inuu cod kale ku soo dhaco oo sidaas uu ku kansalmo ama uu ka baabo ama dib si automatic isku diro codka adoon sidaa rabin taa waxay noqonaysaa inaad codad badan aad duubto kadibna aad u dirto qofkaad rabto in hal mar aad codka u dirto haddaba si arintaas aad uga gaashaanto waa maanta farsamo ah inaad duubi karto cod intaad rabto haddii uu qofka kale uu wax ku soo dirana isma kansali doono codka aad duubayso farsamada labaad waxa weeye adoo cod duubaya tusaale ahaan ayaa waxa dhex galay cod kale oo aad rabin ama waxa laga yaabaa inay wax hun ama hadna ay ka fakadeen kadibna ay kula qunaan weysay inaad codkaas u dirto qofkaas waxa laga yaabaa haddii aad sii deyso codka si automatic ah inuu isku diro si arintaas aad uga gaashaanto waxaad awoodaa adoon codka sidaa u haya fartaada uga haya inaad tirtirto asoon dirsamin codka haddaba ugu horeen waxaan furaynaa WhatsApp-ka markaa furno ka bacdi waxaan ka sii dooran doonaa qofka aan doonayno ama qofka aan rabno inaan u dirno codka anaga hadda waxaan rabnaa numberkaas inaan u dirno cod su'aalahan waxaa rabtaa inaan cod dheer aan u duubno lambarkan haddii uu lacala anagoo codka duubayna uu wax inoo soo dirana waxaan rabnaa inuu kansalmin ama inuu istaagin hadalka ama codka aan duubayno waxaad qabanaysaa microphone-ka markaad qabat kadib waxaad sameynaysaa dhanka sare aad u jiidaysaa waad u jeedaa qofulka inuu xirmaayo dhanka sare markaad u jiido waad deynaysaa waad jiidaysaa waana deynaysaa hadda codka intaad doontid ayaad duubi kartaa waad u jeedaa in daqiiqadaha ay soconayaan codka uu duubmaayo haddii uu anagoo codkan duubayno haddii oo ma aragtayo codad kale ama waxyaabo kale uu inoo soo diro qofkan aan codka u duubayno isma kansali doono wax anaga duubayno xeeladan waa xeelada aad uga gaashaantami lahayd ama aad uga hortagi lahayd inuu cod dhowr cod aad u duubto qofkaas adoo rabay in hadalka hal mar aad u dhameyso kadib aad u sii dirto hadda aan iska kansalno xeelada labaad ayaa waxay tahay tusaale ahaan microphone ayaad haysaa cod ayaad duubaynaa hadda sidaad ugu jeedid waa bilowday waxaa rabtaa codkan ayaa cod kale aan rabin iga dhex galay ama hadal aan rabin iga dhex galay way ila qunaan weysay inaan qofkan u diro haddaba waxaan rabaa inaan kansalo si aad u kansasho kadib kaliya waxaad u jiidaysaa dhanka bidix markaan jiido ka bacdi way istuurayaa si automatic ah waxaan duubnay labadaas xeeladood ayaan idinkugu soo gudbinayay muuqaalkan waxaan inaad faa'iiday waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka intiina muuqaalka mid la mid ah aynu dib uga kulmi doono haddii Allah weyn uu ka raali noqdo anagoo caafimaad qabno waa idin la isma dhaafin